كده سويت كل حاجة لكن دبعتها وحد جستي حركة الشباب المجاهدين لكن أنا ما أصدق أنتي أنا مريء من غيرنا مeel oo sax aan ku ogaay dhibaatadaas iyo waqtigeedaas ma jirto waan garta marka in al-shabaab ay geysteen maxaa xog ah oo shacab kala wadaagi karta adigoo ka tirsan weli kama aysan hadlin maxaa tusaalooyin ah oo cadeynaya in al-shabaab ay ka dambeeyeen qaraxaasi oo aad naseyn kartaa qaraxaas xarakada shabaab ka dambeysay waxaana ku cadeynayaa annaga maanta xaaladdeena wax ka jira ogsoonahay aniga shaqo la-aanteyda maanta waan leysastaa maanta waxay yeelaysa wax kamida aniga iyo asxaab ama rag dhalinyarada ka tirsan mujaahidiinta ayaan ka fikir duuneen ama dhibaatada maanta ka dhacday anigoo asxaab qarax oo dhan waxyaala badan ku diidanahay laakiin maanta bisha dhacday ayaa iga hadalsiisay annaga oo maanta hadlayo gruubna aan hadda ila joogaan dhibaatadaas ayaa naga hadalsiisay shacab ku dhacday xarakada shabaab ka dambeysay maantana qof kasta oo shabaab ka tirsan ama mujaahidiinta oo la wareersamay ka hadli kartaa taani aaminsanahay maanta oo anigu u hadlay oo kale waxaana ku cadeynayaa hadda dhibaatada ka taagan dhexda oo amba muranka ah in la sheegtay in la sheega iyo in laiska bil yeelo ayaa taagan dhexdeena maanta saacada kadib hadda aad joogin ama la kadibna waxaa soo bixi doono amba afayeen amba si kale oo waraaqo dhehen inaad laiska bil yihin dhibaatadaas sidii qarax hishaam oo kale waya marka adigu al-shabaab ma xil baa ka haysaa ma askari dagaalamaan tahay ma shaqaalo kale oo al-shabaab ka tirsanta aniga maanta nin muddo badan ku jira waan ahay oo etoobiyaanka waktigiidan ku biirin waxyaalaha aan ugu biirana waxay ahayd dhibaatada waddanka jira gumeysiga shacabka soomaalida keligeeda ma ahna shacabka soomaalida ayaa ku biirtay laakiinse maanta xil weyn oo maanta oo kale oo weyn aan jeeka u ahayo malan aniga laakiinse askarina waa wax kalena waa ka haya waya marka maxaa igala wadaagi kartaa khilaafkan aad leeda dhexdooda ka taagan yahay iyo u dhexeeya xubnaha ugu dhexeeyo qolooyinkee wey khilaafkaas shacabka wixii soomaali oo raggaas ka tirsan uu ka taagan yahay dadka soomaaliya laga qaaday ama ragga dhalinyarada oo askarta ee maahan wixii maanta la socday dhibaatada dhacday oo iga cad ahaan ka digaysa meel ka akhriyay ayuu dhibaato u dhexeeya gaar ahaan madaxda ugu waaweyn ayuu ka dhexeeya axmed diiriye oo kale nin la yidhaahdo ku-xigeenkiisa oo nin libyaan ah abu nadeex albarjaami u dhaho afhayeenka asxaab ayuu u dhexeeyaa oo madaxda amiirada ka tirsan dadka way ku kala duwan yihin saddexaas sine way ku kala duwan yihin yaa qaba in la sheegto yaase diidan qofka qaba in la sheegto iyo kan diidan ma noo sheegi kartaa hadda aniga shaksi ahaan uma sheegi karo laakiin saddexaas nin iyo dadka ugu sarsareeyo iyo kuwa ku heeseeya way kala duwan yihin waya adiga waa nala soo xiriirtay al-shabaabna waad ka tirsan tahay sidee kugu suurta gasheen annagana soo wacdid adigoo dhul al-shabaab ay maamulaan joogana aad hadasho dhibaato jirta waaye waa culeys la diro laakiinse aniga sidii shacabka soomaaliyaadka ugu dhiiradeen oo kale inaa ugu dhiirada ayay ahayd laakiin iima suurta gelin anoo meesha joogin iyo anoo asbaabo kala jirin inaad si waadax isku cadeynan waan jeclaa waxaan ugu irmaanta in lasoo xiriiriyo cunug u yar oo maanta dhistay maahan midkii waxgarad ah iyo qofka waayeel arana ayaa ka hadlay madaxdeeni hore oo naga tagtay oo kale ama masuur oo kale baad ay soo jeedi awgeed ayaan u hadlayaa igamana xaniyo badna ninkaas laakiinse wuxuu ku hadlay dhibaatadii awgeeda uu hadlay marka aniga waxaan rabaa maanta shacabka soomaaliyeedkii uu sheegaya dhibaatadaas aniga beri ayaan ka ahay shacabka soomaalida ayaa maanta kamid ahay qaraxaas aadka u xooganaay midkiisa uu geystay ilaahay subxaana watacaala ayaa maanta u sheegayaa shacabka soomaalida waa u sheegayaa birina waan ka ahay aniga shaqasha-aanteyda qofkiina tawacdii kartaa oo kale intaasna ilaahay subxaana watacaala waxaan leeyahay dadkii ku dhaama ilaahay ha caafimaadso qaraxaasna waxyaalo badan oo aniga aan shaqasha-aan aan ku ogahay oo dheer ma jirto laakiinse khilaafka maanta dhexdeeda ka taagna awgeed ayaa waxyaalo badan soo bixinayso waya adiga waxaa tiri beri baan ka ahay shaqana kuma lihi al-shabaab waa ka tirsanana waad i dhahday sidee ugu beri yeelanaysaa wixii ay al-shabaab fuliyeen adigoo kamid ah ani maanta saddex aan hadlaya intaas ay tahay inaad beri ka ahay maantana meesha aan usoo bixi doono iyo waxaa maanta aamisana raddiga ayay ku jirtaa laakiinse hadalka iga hadalsiinaa waxay tahay baroorta meesha ka dhacda
waya ma laga yaabaa inaad doonaysid in al-shabaab ka soo baxdo maanta wixii arin ka bilowda gurigaan joogaa oo tuule laakiinse waxaan go-aan ka qaatay intaan hadalka aanan ka hadlinba inaan beri ka noqdo wax shaqa iyo jecel oo kale ah hay-adaha dawladda ama cidda aad doonaysid inaad dhinacooda aad timaado ma la soo xiriirtay weli wax xiriira ma la yeelatay maya wax xiriir lama yeelan haddii ulida laakiinse aniga iyo qoysaskeena ayaa waxyaaba badan ka wadasha doono haddii u yidhaahdana dadkaas aniga shaksi ahaantay ayuu ugu hadlay inaad beri ka ahay kalena shabaab kursi iskuma waafaqsano qarxiyadaasina 3 meelood ayuu taargetka u ahaa nimankaas meesha hadda uu ku qarxan lama dhihi karo meesha ayaa laga doonayay laakiinse xerada nabasugidda oo kale iyo milatariga turkiga ayaa laga rabay iyo taarget kale alii sheegay laakiinkaas lama caddo saddexaas ayay ahayd taargetka kale xagee waya lagu yiri waxdiina waxay isticmaalaan ragga mutafakiraadka oo isqarxiyo amba amniyaadka saddex ay ugasho ayaga istibdaac waxaa lidaa oo wax soo ogaado oo meel kusoo ogaado meesha laba qof inay dilaan oo kale amba dhibaato gaari ama ay joogto taqdiir marka ajid ilaahay isticmaalaan oo ah dadka kuwa haddii ay gashaan labaad inay tagaan laba haddii weeyaan saddexaad ay kusoo gagasho waya marka gurigaygaan joogaa baa tiri al-shabaabna waad ka tagta halkii ay joogeen ma laga yaabaa inay ku ogaadaan way ku raadiyaan dareen noocaas ama kugu jira mise waxaad ku nooshahay meel aysan kaa soo raadin karin taas aniga maanta dad ay joogaan waan joogaa laakiinse haddii aan dhibaata i gaarto wax u hadlo waxay tahay labadaas mid inaan maanta anig badbaadin inta aana dhiman kahor shacabka ku beryeelo anin ilaahay maqaati iiga noqdo wixii kaloo ilaahay ii dhibaata ama i gaarta ama badbaadina taas waxaa waaye kii dhintay ama kii lagu xasuuqan aan kala mid ah waya marka al-shabaab waxaa ku nacday qaraxan ay zoobe ka geysteen mise fikiro kale oo ay fuliyeen ood ku diiday baa jira midda ugu weyn ay tahay midaan waay midda ugu weyn ayaa maanta go-aan u qaatay kan waaye dad kale oo kula mid ah oo fakarkan aaminsan ma jira oo al-shabaab kaala tirsanaa waa laga yaabaa waya horey wax oo ay shabaab fuliyeen oo adiga raalli ka ahayn iyo mas-uuliyiin kale aysan raalli ka ahayn ma jiraan waa jiraan madaxa hadda shacabka la joogto ama soo baxday sida ayaa laga wada fikraa taas iyo madaxa ka dhacay shaamu waya adigu wax gaara oo al-shabaab aad kula dagaasho aan kan hayn ma jira walaashaas caqiidada ayuu dalada lagu wada jiro ayaa caqiidada lagu kala duwan yahay laakiinse waxyaala badan jiraan lagu kala duwan yahay marka shacabka soomaaliyeed aniga waxaa rabaa inta aan sheego dhibaatada ilaahay subxaana watacaala kaas ayaan u duceynayaa sidii loogu gurmay shacabka soomaalida waan ugu hambalyeenayaa anagana beri ayaan ka ahay inay beri muhiimka jecyahaakada shacabkaana kamid ahay maanta ayay kamid maahi madaxyadaasna waxa waaye meel dheer ayaa laga soo abaabulay lacag iyo qarash fara badan lagu baxshay intaasna aniga mid kama ahayn hadday jeeb tahay iyo hadday farsamo tahay kamid ma ahayn meela suganaa laa keenay gaarigaas waxay ahayd gaari aad u culus waxa saaran waxaa laga baxshay amba laga gaari markuu la galo ayuu ahaa gaarigaas iyo khilaafka hadda taagan amba aan ku dhex ogaanayo waya walaal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kacdoonkan magaalada ka jira iyo meelo kale oo soomaaliya dunida ah kacdoonkan ka dhashay qaraxii dhacay al-shabaab gudahooda ma laga dareemayaa deegaanada ay joogaan iyo madaxdooda sidee u dareemayaan kacdoonkan madaxda dhexdooda ayaa laga dareemayaa laakiinse askaran laga dareemayo waya maxaa xog ah oo ay la wadaagi kartaa weeraradan dhaca magaalada sida usoo abaabulaan iyo goobaha suurtagalka ah inay ku yimaadaan ayuu nimanka amniyaadka oo kala gaarsamo istibdaac iyo al-ikhlaas iyo tasjiraadka kuma lama shaqeynin laakiinse waa wax xog dheer waaye qaraxaan waxaa lee sheegay inaa 22 maalin la abaabulayo amba la sameynayo gaari ninka la yihahdo muqdisho iyo agaarkiisa laga gelay ayuu ahaa gaarigaas dabadeed 32,500 ayaa laga baxshay intaas ayaa xog ku helay nin south africa ka imaaday oo soomaaliya oo asal ahaan soomaali yahay south africana ka imaaday qaraabana leeyahay ninka la yidhaahdo ninkii isu qaxiyay shaamow oo cabdiraxiin xuseen la yidhahdo ayuu ahaa ninkan waya marka sidee ku helaan al-shabaab meelaha ay qarxinayaan xogtooda sidee ku ogaadaan
qaraxyada muqdisho gudaheeda laga sameeyaa qofka ka hor intuusan isqaxin soo sameeyaa qaraxyada meesha lagu qoshanayo waxaa soo ogaanyooniga istidlaac oo soo dhowaado nimanka saxiya wax gudbiyo nimankaas ayaa rag ka horraaca sidaasna meesha lagu filaa waya marka ma muqdisho laga soo abaabulaa mise meelo kale muqdisho ka baxda warka si fiican ma xaqiijin kara aniga laakiin si kan gobol ayuu ku imaaday oo fogeen laakiin waxaan rabnaa mustaqbalka al-shabaab ka waran maxaa kaaga muuqda adiga ka mid aha wararkii ugu dambeeyey halkay u socdaan iyo halkay ka yimaadeen maxaa kuu muuqda والله هذا كاس جوابتي في أنا ما أنت صعب صناعة وحوش فكرة إلى خلاف كده يعني تاريخ لكن ملاحظ درس أو نمكلا أو دليرة حقين أو بحر كلا حاجة أو كلا يسكت بريك أو كورقين هيك كنا تلفوني غير ردسي لكن ملاحظ أي كده يعني لا يعني ورق على كده إيش الدنيا أما أي شيء كان بس خلاص وقت تاريخ marka khilaafka Soomaalida oo madaxda ah iyo ajaanibta madaxda ka tirsan oo al-shabaab u dhaxeeya mid Soomaalida laftirkeeda isku khilaafsan Soomaalida iyo ajaanibta ayaa isku khilaafsan markii soo diyaartay amani ku xilay Axmed Dibi oo al-Najah al-Barjawi akiisrika ayaa ku jira khilaaf oo inkaas ay ku tahay dilalka magaalada ka dhaca iyo qaraxyada gawaarida lagu xiro ee laga tago tawaran wax warama ka haysa raggaas wali mid la shaqaysan أنا كم شغالين كم وجدنا كذلك وين على كتفهم الحقيقة كل شيء ويجي كما أنا بين السؤال برنامج الأوكلة برنامج كلا كتب بين لكن أنا مش فاكرني maxaa loo sheegaa ragga dhalinyarada ah ee isqaxiya al-shabaab maxay u sheegaan inta dhalinyarada barnaamijka maalinka laakiin ninkii madax ama mas'uul hayo aduu su'aal ka weydiiyo aniga kama dabeerin ay ku marayaan barnaamijka waya adiga wax maqal ah ma ku soo gaareen innaba wax yar oo maqal ma ka soo gaareen waxa loo sheego sida qofka looga dhaadhiciyo inuu isqarxiyo haba yaraatay wax sheeka ma ka soo gaartay tafkiru telefoonka ayuu jaray markaas waxa uu sheegtay inuu ka mid yahay saraakiisha al-shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in hadda uu baxsad iyagu ka yahay oo ay isku fahmi waayeen khilaaf ka dhashay qaraxii ka dhacay Zoobe magaalada Muqdisho ee kala socotaan